waxaana wanaagsan soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada doodan gaarka ah oo si wada jir ah soo la qabanayaan xarunta cilmi baarista daraasaadka amniga arrimaha bulshada iyo siyaasadda ee Balqiis Insights iyo TV-ga Dawan. waa dood imanaysa 17 sano kadib hawlgalka Amison ee nabad ilaalinta Soomaaliya oo yimid 2007. Amison ayaa asalkeeda loogu talagalay markii dambe ATMIS isku bedeshay, haddana isbedel uu ku iman doono inay ilaaliso xarumaha dawladda, madaxda dawladda iyo meelaha muhiimka ah sida dekedaha iyo airborada. intaas lagu jiray 17 sano dalka waxaa ka dhacay isbedelo waaweyn oo dhinaca amniga ah iyo hawlgallo, sidoo kale waxaa ka dhacay tacdiyo ka dhanaha xuquuq insaanka, qaraxyo. welina Soomaaliya maysan si toos ah uga dhigan inay la wareegto amnigeeda. haddaba 17 sano kadib, maadaama dawladda Soomaaliya weli inay si toos ah amniga oo la wareegto aysan ku fileen, aysan dhameystiri karin qorshe loogu talagalay Soomaaliya inay amniga kula wareegto dhamaadka sanadkan hadda aan ku jiro 2024. halkeen u soconaa muddo kordhinta cusub ee Amison oo ama ATMIS intay gaari doontaa? waxaa kamid ah dawladaha qayb ka noqonaya isbedelkan cusub sida la sheegay dalka Masar iyo dawladda Andariskana ee Ethiopia waxaa ka dhaxeeya colaad siyaasadeed oo ka dhalatay ama ku saabsan biyo mareenka ama webiga Nile loo yaqaan. haddaba Soomaaliya say u maareyn doontaa in dawladda Masar ay ciidamada Soomaaliya ay yimaadaan inaysan isku dhacyo ayaga Ethiopia ka dhanahay inaysan dhicin. haddaba maanta barnaamijka waxaa marti ku ahaa oo joogo ardayda jaamacadaha magaalada Muqdisho, aqoon-yahan, indheergarad iyo dad jiilka soo korayo oo siyaasadda mustaqbalka dalka inay la wadaagaan la rajeynayo. doodan ayaan furan doonaa, waxaana ka doodi doonaa xaaladda Amison ama ciidanka xasilinta Soomaaliya ee hadda soo socda say ay noqon doonto. marka soo dhawaada doodan ayaan bilaabi doonaa. su'aalaha ugu waaweyn waxay yihiin bal markaan dib u loo fiirino 17 sano qofkii dhashay hadda waa qaangaad, dugsiga sarana laga yaabaa qaybo kamid ah inay ka baxeen. seed u arkaysaan in markii saddexaad wajiga ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya la bedelay? maxaana is oran kartaan waa ku soo kordhin karaan? ama haddaan dib ugu laaban karo 17 sano wixii dhacay iyo aragtidiina? soo dhawaada, yaa noo bilaabaya. bismillaah. haddaan ka hadlo ciidamada Amisom maxaa la missionkooda markasta oo isbedelayo, hadda maxaa la magacyo badan qaatay, haddana qorshe uu yahay waddanka inay ka dhamaadaan. su-aashu waxay daaran tahay Soomaaliya 17 sano maxaa laga macaashay oo yacni amniga ay ku soo kordhiyeen? aniga waxaan is leeyahay hal arrin oo waxaa jirto oo positive ah. tusaale waddanka waxay imaadeen sida la sheego taariikhda ku qoran March 2007 imaadeen. soo marka haddii sooyaalkeena aad fiirsid, dowlad dhiska iyo kala wareegii ka soo bilowday waqtigii Shariif ee la isugu tagay Djibouti ee la isugu geeyay maxaa la 500 oo baarlamaanka maartay meesha lagu mideeyay, tiimkii Casmara iyo tiimkii mataqaana maxaa la Cabdullaahi Yuusuf ay ku heshiiyeen. kadibna maxaa la dawladdu ay soo guurtay maxaa la saldhigeedu xamar uu noqday. kala wareegii dowladnimada Soomaaliya markaa fiirsid asaasi u ahaayeen. tusaale in 2012 madaxweyne oo ka imaad bulshada rayidka oo maaragtay Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo imaado oo maxaa la maamulo dalka, kadib Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mataqaana uu ka bedelo, mar kale haddana maxaa la Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo laabto. haddii annaga aan isku maxaa la madax banaanaan lahayn intaas ma dhici lahayn in la kala wareego. soo marka amaanta hadda Afrika aan ku dhaxleynaa waxay tahay Soomaaliya inaan kala wareegno oo dawladdu maxaa la isu dhiib ay noqoto. soo marka in xarun dawlad ay shaqeyso oo loo shaqo tago oo shaqooyinka mataqaana maxaa la hortabinta leh ka dhacaan. Amison qaybkeeda mataqaana qayb lixaadna ka qaadatay. soo markaa fiirsada gobolka Banaadir aan ku noolnahay, dekada maxaa la lahaa markaa fiirsid elboorka, markaa fiirsid goobaha dhan oo muhiimka ayaga hayaan. soo marka aniga waxaan qabaa Amison positivity-ga laga faa'iido waxay ahayd kala wareegga dowladnimadeena inay sal yeelato oo lagu kala wareego maxaa la dowladnimada. positive ugu weyn oo mataqaana ciidamada Amison laga helo taas ahayd. intaas ku soo koobaya. maxaad is leedahay marka iyadoo isla taana aan ku jiro 17 sano kadib in weli Soomaalidu aysan awood u lahayn inay amnigooda ay la wareegaan, mar saddexaadna la cusboonaysiiyo oo dawlado cusub oo Masar ay kamid tahay ku soo biirayaan? aragtidaada maxay kula tahay
marka ugu dambaysa la isku soo gabagabeeyay barnaamijkani Amazon guul ayuu ku dhamaan doonaa caqabadaha hortaagan bal kuwaasna noo iftiimi. horta si aan ogsoonahay waddankeena mushkilad badan ka jiraan. tusaale hadda waxaa laga hadlayo waa mushkilad amni horta Amazon ku imaatay, waana haddii sooyaalka dib aan u raacno dowladnimadeena waxay burtay 91dii. waxaan ku jirnay 9 sano oo yani markaa fiirsay qaabka ku imaaday caalimada Allah u naxariisto kaleeto waa dagaal ka dhashay 4 biloodkii ka dhashay markuu asaga imaaday kadib ilaa laga soo gaaro 2000 markii la aadayay maxaa la carta dowladnimadeena markaas ma taqaanaa timid haddana ma saldhigan oo yani saldhig fiican ma artay meesha laakiin markii ciidamada Amazon waddanka ay soo galeen dowladnimadeena ma taqaanaa yani way saldhigatay oo intercessionkii ma artay lagu kala wareegay dowladnimada lagu kala wareegay noqotay soo marka hadda inuu howlgalkii sii socdo soo magacyo kala duwan qaadanayo waxa oo hortabinta u lahaa waxay tahay haddii nimanka hadda dowladnimada ka soo horjeeda ee shabaab oo kaleeto la wiiqo Amazon ma loo baahanayo annaga waa isku filnaan karnaa markaas laakiin inta shabaab ay joogaan tiimka maaragtay jooga xalana jabtarsaman maaragtay waddanka sida la sheego inkastoo xaqiiqadan aynan ahayn oo la yiraahdo jabtarsaman ay ku maamulaan waddanka yani way sii joogayaan xalana way sii jireen Amazon way sii jireen magaci doonta ha qaadato waa inta waddanka uu ka jiro nimanka maaragtay dhalinyarada ah duurka galay magaca al-shabaab qaatay maanta dhibaatada waddanka ku hayaan ognahay intay jiraan way sii jireysaa. aad ma santahay marka haddii aan noo fariiso haddii adigu waa noo fariisan kartaa maana waa sii wada karaa dooda waa noo fariisan kartaa haddii aad markaan su'aalaha sii wadno ka warrama dhinaca kale haddaan ka fiirino dowladda Soomaaliya 17 sano Amazon ay joogaan ama Atmis ama hadda wajiga cusub ay galayso waa run xukunku uu kala warwareey gacmo kala duwan oo transitional dhacay ama kala wareey waa la kala wareeyay si nabada laakiin dowladnimada iyo socodsiinteeda iyo dadkii inay nabad helaan oo kale waa laga gaabiyay ay noqonaysaa marka dowladda Soomaaliya iyo Amazon marka la isku fiiriyo yaa iskale mas'uuliyadda koobaad oo ah in shacabku ay amni helaan dalkana gacanta dowladda lagu soo celiyay mar labaad dowladda Soomaaliya ka gaabisay ma qaabka loo diyaariyay marka hore nidaamkan hadda oo nabad ilaalinta ayaa wax ka khaldan yihiin maxay idin la tahay haddaan dhinacana ka eegno. bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeyn Allah subxaanahu wa ta'aala magacaagana ku bilowaa magacaygu Cabdi Cabdullaahi Cali waxaan ahay mid ka mid ah ardayda jaamacadda SIU waa u mahad celinayaa tiimka Balqiisa oo barnaamijkan qabanayay isoo kale TV-ga dawan isoo kale saaxiibada jaamacadaha kale mid aqoon-yahanada ah adigana ku mahad celinayaa dhammaantiin intaas kadib su'aashaada haddaan u guda gala ahayd yaa mas'uuliyadda leh aniga si degdeg ama si halhaleela mar walba waxaan dhahaa nidaamka dowladnimada Soomaaliya si guudna Soomaaliya waxa taa intaan dhin madaxda mar walba hogaamisa waxaan islaahay mar walba ayaga mas'uulka ah waxaa jirta sheeko xigmadeed qoys waxaa jiray hal sac baa u joogay xoolo kala haayeen halkaas sac marka wiilasha mid caanuhu ka lisaa mid dibiga nuugayuu u xiraa mid masagadu u soo sameeyaa mid cawsku u keenaa saacas ku wada noolaayeen muddo dhowr sano ah nin marti ah oo xigmad badan u soo martiyay wuu arkay reerka dhan sac inay ku nool yihiin habeenkii wuu looyday caaniisa asaga u keeneen ayagana way qadeen waagi markuu soo bariyo oo xilli dhexa ay tahay sicii intuu gowracay uu ka tegay wuxuu meel xaafadii u soo tegay halkii sac nolol kala haayeen subaxii markay soo tooseen waxay la kulmeen socoodii xalal la gowracay wax ku qasbanaaday hilibkiisa inay cunaan marka reer dhan oo hal sac lahaa markaas waxa lagu qasbanaaday sicii hadii la gowracay maxaa nagasti noo ah markaas mid beero fala mid xoolo kala tabca mid meel kala aad hal sano kadib ninkii uu soo maray reerkii ayagoo beerale ayagoo wax dhoofsada ayagoo noloshooda u kala kacsan tahay marka wuxuu dhahay haddii sacaas aan ka gowrici lahayn hal sano kadib waxaan u imaan lahaa isla siica ayagoo qofba geeska taagan yahay madaxda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin Amazon la'aanta inaysan noolaan karin madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama qofka mas'uulka ah intuu isku halayn karo qof Soomaaliyeed baa ku waadiinay wuxuu ka kalsooni badan yahay qof Afrikaan inuu ku waadiyo sida saxda Soomaalida waxaa la dhahaa madaxdeena markay ka cabanayaan ciidankeena inay waardiyeeyaan ama xarumaha muhiimka loo dhiibo waxay ka cabanayaan ama ay ka cabsadaan in la laaluushi karo in lala soo hadlo in nimanka galaangal u yeeshaan ma garanayo aniga Afrikaan aslanaha Soomaaliga haduu laaluushi qaato Kenyaankan uu qaataa Ethiopiankan uu qaataa Ugandaskan uu qaataa dabcan waa ka sibanahay marka mar walba aniga waxaan isleeyahay fashilka ugu weyn wuxuu ka imaadaa madaxdeena saa adiga ba sheegtay saaxiibadana ay qireen Soomaaliya maaliyadda ugu badan waxay ku baxdaa amniga Soomaaliya marka laga soo tago xataa Amazon oo ayadu si gaar maaliyadda ay u fadhido marka maaliyaddaas hadii la siiyo sida ugu habboon hadaan uga faa'iideysan lahayn waxaan aaminsanaa maanta heerka inay joogteen mid kale waxyaaba isweydiinta mudan waxaa ka mid ah Amazon hadda si toos ah u hoos tagtaa waxay soo gaartay
waddanka haddeer kacdoon u galay dagaalaa la qaaday shabaabaa lagu qaaday ilaa iyo gobollada hiiraan waa la fogaaday hal askari oo amisom xabad maridin mana socon markii dabcan la isweydiiyo la yidhi waay amisom maxay xalana u dhex fadhidaa maxay xeryaha beledweyne iyo mataqaanaa ugu kooban tahay iyo gedo oo aysan u baxayn oo dagaalka aysan qayb uga noqonayn waxaa lahay waxay u baahan yihiin in oo amarkeeda Ethiopia sii maro kadib sii gudbo kadib Mareykan tago kadib Geneva u sii gudbo sidaas darteed iska joogaan marka dabcan ujeedkooda ugu weyn oo ahaa amniga Soomaaliya inay sugaan annaka marka u dareernay oo nimankii la dagaalno amniga qatarta ku ahaa amisom way ka hartay markii dib la isku weydiiyay waxaa la ogaaday waxaa lahay awoodooda uma diyaarsan hadda halkaas inay sii galaan amar oo u baahan taas bedelkeeda waxaa la yaababa amisom ayadoo intaas oo kun oo doolar intaas bilyan lacag nooga baxdo maalintii waxaan arkay taliyaha ciidanka Uganda oo isla madaxweynaha Uganda oo sidoo Museveni wuxuu dhahay Mareykanka waxaan ka rabnaa 1 bilyan oo lacag oo ah magdhowna laga siiyo Soomaaliya maadaama ciidankeena Soomaaliya ay ku dhintaan salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh maasantiin aad iyo aad u maasan tahay isla halkaasaan ka sii wadaynaa marka doodaadu waxay ahayd ama ay ku saabsanayd Amazon waxaa nooga fiican inaan ayada dhan ka takhalusno oo annagu aan isku tashanno doodaas yaa la qaba doodaas yaa la qaba in la gaaray xilligii Amazon la iska iloobi lahaa in lagu tiirsanaado amni ahaan Soomaaliduna gudahooda ay isku fikri lahaayeen oo ayagu amnigooda ay samaysan lahaayeen ama al-shabaab dagaalka ka dhanka ha noqoto ama amniga dadka gudaha dalka in la sameeyo ama in xuduudaha la sameeyo doodaas yaa la qaba saaxiibka bismillah magacayga horta waa Cabdixamiid Shariif haddii aan doodaniga walaalkay aan sii xoojiyo yani ciidamada Amisom muddo hadda 15 sano ka badan ay waddanka joogaan saas tahay markii hore waxa loo keenay inay nabad ilaaliyaan laakiin markii dambe wuxuu isku bedelay howlgalka inay nabad dhaliyaal noqdaan oo yani howlgalle ay sameeyaan howlgalladii dhinacna waa looga faa'iiday dhinacna waa lagu khasaaray khasaaraha hadda ka fiirino howlgallada ma ahayn howlgalle ay macnaha la tashi ku saleysan oo ama dawladda ay kala tashanayaan howlgalle ayagu si iskooda ay u qaadayaan oo ahayd ama in ayagu ay difaaciyadooda ay ku xoojinayaan maahan howlgalle ay dalka ku xoreynaan ma ahayn tusaale intii guuraanay magaalo kale ay ka guuraan magaalo 80 kilomitir ay degaan 80 inta u dhaxayso 70 kilomitirna ay joogaan groupkii meesha in laga xoreeyo la rabo يعني أيوة إنه مجالات عن الدقيقة أو UN كأوجو بدن يجوان يكد دفاع ده مجال كحجيس أساس عمل يقول دجالمان لكن حريان دول ما دجالمان تيجي كلاته إن سومالي ما أنت إسكت تشت أنا هذا وحجينا سببته مدلل بعتصر كله ودي هو الجل قرمه المدوبي وده وحبل له كاني إن ما أنت لإسكت تشت أو أنت أمي سوم لإسكسار buri biya loo kala bixila ama ayagu ha qabsadaan dhulka ama Soomaali kale dhulka ha la wareeg marka teeda kale marka dhinaca kale Amisom ku laabto dawladda Soomaali markii tiri ciidamada Amisom qayb kamid ha baxdo ana ciidamada Amisom dhamaan ha baxdo ma dhin laakiin qayb kamid macna loo dan leeyahay markii la fiiro dalalka safka hore ama kii ama Ethiopia loo dan leeyahay oo yani maamul goboleedyo diris leh saameyn ku leh sida kii oo kale tad Jubbaland caqabadaha dawladda yani inay maamulkaas ku haayo kamid tahay kii sidoo kale Ethiopia waxay kamid tahay dalalka fargelinta saayidka ku haayo ama inay dawladda maamulo ka tirsan dawladda dhexe inay heshiis la gaaraan sidii dawladda camal ay u leeshiyaan teeda kale to howlgalka cusub ee hadda imaanaya howlgalkaas naftigiis saddex walxato yeel kara inuu dhinacii hore oo sidii horeeto u ahaado oo waxba laga faa'iido iyo inuu dalka faa'iido u yeesho yani ay howlgallo saf balaaran sameeyaan oo ururada argagixisada meesha laga saaro iyo in dhibaato kale ay ka timaado in dalka gudihiisa lagu dagaalamo tusaale hadda wax la sheegay Masar oo kale in imaanayso Masar iyo Ethiopia challenge ka dhaxeeyo waa la wada ogyahay oo wadiga Nile isku haystaan marka haddii Soomaaliya la keeno waxaan u maleynayaa saddexdaas dhibaato in ka dhacayso ama in sidii hore ay ahaato oo waxba kale laga faa'iidin oo magac oo calooshiidu shaqaystayaal camal ay ku joogaan iyo in yani laga faa'iido howlgallo saf balaaran intii sameeyaan waddanka argagixisada laga suuliyo
iyo in meesha ay lagu dagaalamaba oo waddanka hadhowdii haddii la dagaalamana laba mid a imaan doonto in lagu faa'iido dagaalkaas oo Itoobiyaanka la jibiyo dabeetana meeshaasna dowladda Soomaaliya awood ay ku yeelato ama in masaarida inta la jibiyo Soomaalida kalena cagta la mariyo la isku daba daro marka maanta waxaan xoojin lahay in Soomaalidu isku tashato waayahay waan aad mahadsan tahay waxaan rabnaa inaan halkaa ka sii wadno Amazon saan sheegnay 17 sano ee dalka joogtay madaxda amnigooda ilaalinaysay iyo meelaha muhiimka ah sidoo kalena waxay ka qayb gashay hawlgallo qorsheysan oo al-shabaab meelo badan lagaga xoreeyay dalka gudihiisa maanta saad la socotaan madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku wareejiyay ilaalinta amnigiisa ciidamo Soomaaliyeed inay ilaaliyaan Amazon uu ka maarmay dhinaca marka laga fiiriyana waa horumar dhinaca meelihii loogu talagalay in la ilaaliyaan qaybo kamid ah in si oo ayar ah maaragtay looga takhalusayo laakiin su'aasha aan rabay inaan weydiiyo arinta kale ku xira waxa weyn wajiga saddexaad oo hadda iman doona oo dawladda Masar oo kale ay kamid tahay bal dhinaca Masar markaan ka soo fiirino hawlgalkan maxaa iska bedeli doona maxay ku soo biirin doonaan caqabadaha hadda uu saaxiibkeen ka hadlay oo ayaga iyo Ethiopia dhibaatada ka dhex jirto Nile webiga la xiriirta arrimahaas rabnaa inaan fiirfiirino haddii gabdhuhu noo bilaabi lahaayeen waan jeclaan lahayn haddii qof kale uu rabo inuu ku soo dhawaado soo dhow bismillah magacayga Cabdiqani Ciise Cilmi su'aasha sidaan ku soo dhawaado wajiga saddexaad ee ATMIS magaca ka cusub loo soo wada bixin doono haddii aan ku soo dhawaado macnaha saameynta uu ku yeelan doono ama waxyaabo ku soo kordhi karo waddanka horta su'aasha koowaad waxa weeye waddanka waxaa soo joogay ciidamada Itoobiya oo kamid ahaa ciidanka ATMIS Itoobiya iyo Masarna waa ognahay waxyaabo ka dhexeeya iyo dhibaatada iyo macnaha colaadda kow haddii wadamadaas colaaddu ay sii badato ama ay sii siyaad ama wax dhacaan Soomaaliya waxay noqon kartaa meel beys u noqota ama ay ku loolamaan labadaas awoodooda jooga ciidankan ognahay soo socda ciidan fara badan tobanka loo sheegay kii joogay Kenyaanka Itoobiyaanka haysna waa ciidan intiis leeyahay kasii badan ama ka ku dhow marka waxaa jiri karta ama dhici karta labadaas awoodood haddii ay macnaha colaadda wadamadooda iyadoo lagu basgaran inay Soomaaliya noqoto meel colaadaas macnaha saameyn weyn ku yeelato ciidamadaas ku loolamaan talabaad ay soo kordhin karaan waxa weeye ciidankan hadda jooga waxaan ognahay inay macnaha waddanka ka geystaan tacadiye fara badan oo dhan walba macnaha deegaamada joogaan oo kale tacadiye waxay geystaan kufsiyo wax laga yaabo la mid ah ilaa haddana 17 sano joogaan wax ay xaqiijiyeen waxyaabihii loo keenay waddanka oo la oran karo macnaha wax dhib mooyee waxna wax iska yar mooyaan wax la tilmaami karo la oran karo intaas sano joogeen waxaasay qabteen ma jirto marka waxa u qurux badan Soomaaliya inay ciidankaas joojiso aragtida kii hore waddanka joogana si looga saari lahaa laga shaqeeyo saa sheegtay madaxweynuhu wuxuu amnigiisa ku wareejiyay ciidan Soomaaliya ilaa hadda lama arkin wax qabaday wax dhibaatay wax ciidanka madaxweynaha soo gaaray waxay muujinaysaa waddanku inuu diyaarsan yahay ciidankeenu inuu diyaarsan yihiin inay ilaaliyaan madaxda waddankooda iyo nabadda shacabkooda marka waxa qurux badan oo aan oran lahaa ama ay aragtidu tahay waddanka in laga sifeeyo wax walba ajaanib hadda sidaan ognahay wadamada ajaanibka ciidamada dibadda laga keenay la geeyay oo loogu talagalay in nabadooda ka shaqeeyaan aakhirka wax ku dambeeyay inay burburaan ama ay burbur ku dhawaadaan marka Soomaaliya intay burbur lahayd ama waxyaabahaas ku dhicay in laga joojiyo lagana sifeeyo ciidamadii hore waxa ku baxay ciidamadan hadda ATMIS oo kale waxa tiri 1 bilyan sanadkii ku baxda waxa diiday waddanka ciidamada jooga Soomaaliyeed in lagu khalashkay lacagta lagu qalabeeyo oo awoodooda lagu dhiso beeskooda military lagu hagaajiyo oo kor loogu qaado taasa ka dhow in ciidamo ajaanib ay waddanka nabad ka dhigaan ay ilaaliyaan ama ay wax soo kordhiyaan sida hadda madaxweynaha amnigiisa ay ula wareegeen way ula wareegi karaan haddii la qalabeeyo oo kalsoonidaas la siiyo oo lacagta iyaga ciidamada kale lagu kharash garanayo waddanka lagu dilaayo in iyaga lagu macnaha lagu qaado awoodooda ciidan militarygooda iyo macnaha waxyaabada lagu habeeyo marka ani aragtidu waxa weeye ciidankaas dhibaatada soo kordhin karo way farbadanta marka dhinacadan la eego ugu weyn waxa weeye inay sii kordhiyaan kharashaadkii deemihii wixii waddanka ku jiray inay tacadiyada badiyaan inay awoodahaas kale waddanka jooga ay hayaan ay dhici karto inay dhex maraan khilaafaad iyo waxyaabo macnaha sababi kara nabad darro aad iyo aad mahadsan tahay su'aasha meesha taala marka waxay tahay ciidamada ATMIS ama Amazon ama isbedelka cusub ee wajiga saddexaad la galaysa la socotaan kow sababtii keentay baahi Soomaali gudaheeda ka dhacdo Soomaaliya in ismaamul weeday amnigeedu inuu faraha ka baxayay ayay ahayd markaad fiirisaan ma isleedihiin 17 sano kadib dawlad dhiska Soomaaliya iyo awoodda dadkeena wax garadka ah iyo siyaasiyiinteena haddii maanta Amazon laga dhex saaro
waa isku filaan karaa dowladnimadii waa sii hana qaadi karaa waa la sii wada karaa ma aaminsantihiin mise weli waxaa aaminsantihiin wejiga saddexaad dhammaadkiisa ama inaan wejigan eegno kadibna aan qiimeyno mise waxaa leedihin hadda xilligan la joogo soomaalidu dowladnimada waa baratay waxna waa fahmeen waana isku filan yihiin dowladdan waa wadi karaan ma is leedihin soo dhow bismillaah magacay waa Sumay Nuur Maxamed hadda halkaas ka amba qaado horta Soomaaliya intay ku tashan dowladda Soomaaliya intay ku tashanayso ATMIS ama ay silaada wax way soo kordhin karaan isku filnaansho amni ma gaarayso sababtoo ah 17 sano ATMIS wadanka joogtaa hadeertaana saddex qodob aan dhigi karno ATMIS way soo kordhisay ama way qabatay ma jirto amniga hadeerta madaxweynaha waxaa la wareegay ciidan Soomaaliyeed ma arkin sidoo sheegaybo hadeertan wax oo madaxweynaha problem oo qabsaday si lamida ciidanka Soomaaliyeed hadii la dhiirigeliyo qarashka ATMIS ku baxay ciidanka Soomaaliyeed lagu bixiyo meelaha waaweyn loo dhiibo ciidanku waxay helayaan dhiirigelin macnaha wadanka inay ayaga leeyihiin in la dareensiyo laakiin mar walba hadii meelihii muhiimka ahaa ATMIS laga hormarsiyo ama ciidan ajaanib loo dhiibo isku filnaansho ma la gaarayo hadeertan wajiga saddexaad oo soo socdana 17 sano kadib waxaa la taagan yahay waji saddexaad la aadaya anigu ma qabo in waji saddexaad la aado sababtoo ah 17 sano ciidan ajnabi waxnoo keeni waayeen marka waqtigan waxaa la joogaa waqtigii aan fiiri lahayn awoodeena anaga isku tashan lahayn sababtan waxay tahay hadeertan waxaa la qaaday dagaal khawaarij ah wajigiisa koowaad waa aragna soo ku dhamaaday ciidan ajnabi ma ka qayb galin qof ajnabi maanta xabad ridan ma jiro Soomaali ahaayeen ciidankaas si lamida Soomaalida hadii marka awoodooda loo madax banaaneeyo waxa ka dhalan karto wax fiican ani marka waxa qabaa bataatan bay in waji saddexaad la aadin Soomaaliya ayada is aaminto amnigeeda iyo waxeeda in ayada isku filnaash inay gaari karto horta waa inay aamintaa markaas wax la sameyn karaa ama santiin waayahay aad ma santahay soosi saaxiibkan soosi asagana committee-giisa ku sii daro kadibna waxaan geli doonaa tusaale kale in AMISOM dalkan ay joogaan tacadiyo badan ka dhacaysa qayb idinka mid aad xusteen dad waxaa jira ii sheeg meelaha ay deganaayeen maxaa la yiraahdaa wax suuq u dhow kala dad badan oo hal meel lagu laayay dad gabdha oo kufsi dad oo bajaajka ayagoo magaalada dhex maray gaariyaal laga dulmariyay dhinaca saameyn nooceeha ay ku yeelan kartaa AMISOM nafteeda magaceeda ficiladaas guracan oo maaragtay ka dhanka xuquuqda insaanka ay sameeyaan aydan waan eegi doonaa laakiin adaan ku bilaabayna soo dhow qaybtii markii hore aad rabtay qayb ugu horeyn bismillaah magacaygu waa Suleymaan Saciid Imaan waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ISAU ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo qolada barnaamijka agaasintaba taa kadib wuxuu ahay ma la gaaray yani xilligii Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed amnigooda maanta ay la wareegi lahaayeen dabcan waxaan aaminsanahay waayo Soomaaliya muddo dhowr 30 sano ay burbur ku soo jirtay intaa kadib yani 30 sano kadibna dadkeenu yani colaad ama dagaal sokeeyay ama dhibaatooyin kale uma xiisa qabaan oo maanta ma jirto qof inaga mid halkan fadhiyo yani inuu qoro qaato ama dagaal kale rabo naguma jiro ujeedii nabadda sidoo macaanta nuurka naga wada muuqdo wuxuu ahay ATMIS yani in maanta waji saddexaad loo sii diro xaqiiqatan waa ka soo jeedaa totally ciidan shisheeyay yani wadan talageeyay ay amnigiisa sugayaan ama halkii loo baahnaa ay gaarsiiyaan ma jirto taariikhda markii dib loo fiiriyo yani dhowr wadan waxaa jirto UN ama Africa baa la geeyay ciidamo shisheeye danna natiijadu ay ku soo dhamaatay halkii yani maalinkii la geenay ay joogtay ayagu waxba aan iska bedelin yani laga soo waday marka u malayn maayo maanta AMISOM hadii fursad saddexaad la siiyo yani in isbedel yani 17 sano ay ku keeni weysay in hadda kadib ay keeni doonto wuxuu ahay AMISOM labada dhinac markii loo eego dhinacna wuxuu ahay qayb way ka qaaday dowladda sana dhinaca kale markii loo eegeen dhibaatooyin far badan yani wadanka ka geysteen cid kula xisaabtanta ma jirto yani dad badan ay laayeen hanti badan ay burburiyeen cid kula xisaabtanta ma jirto wuxuu ahay hadirtaan AMISOM anaga waxba uma yeesan laakiin wadanka waxay nooga baxdaan qabaa fikirkaas yani waayo ciidankeena maanta hadii la maalgeliyo yani loo diyaariyo wadanka ay la wareegan waa amisna way la wareegi karaan beesha caalamka ama Afrika way yani u diidan yihiin ciidanka Soomaaliyeed in lagu bixiyo yani dhaqaalaha AMISOM lagu bixiyo يعني دغالا أمسون لغو بحي هادي عيدن كان لغو بحيو عيدن كانوا حنوقو كرا يعني جيسك أفريقيا عيدن كو أودو بدن بلس لك حقيقة إن عيد يعني أنا أوغلين أدو إن هير جارتو أما يعني هالكا نيد أنكو هنا يعني عندنا جارتيه سمجتو
innaga ay isgaarsiin karno soomaaliya xilligii dalkeeda ay yacni faraha ku dhigileedna waa la gaaray aan aaminsanahay dadkeenu u diyaarsan yihiin ciidankeenu u diyaarsan yihiin dadkayga soomaaliyeedna waxaan ugu baaqi lahay dalkani dadkaan cidna uma maqno muxuu ahay cidna uma maqno beesha caalamka ama afrika waxaan ka sugnina waxbay noo keeni maayaan innaga aan isku tashano wiil soomaaliyeed oo qora ah kaa sito waa xamar ilaa iyo hiiraan ilaa gobol dhex sii ordayay yani intaas isku furay amisom maxay qabanaysa iyadoo dabaabado wato hub culus u yaalo waxaa la yidhi yani ma geli karaan uma diyaarsan wiil soomaaliyeed qora ah kaa sita ilaa hiiraan ilaa intaas ku furay yani wiilkaas aa kaa sito yani kama awood badno amisom isagoo dabaabaadka aragto wato dhaqaalaha aragtaysto daawada aragtaysto hubka aragtaysto marka umaleyn maa amisom intaan waxay keeni waayeen inay keeni doonaan waana kasoo horjeedaa fikirka aan haddii ku ciidamo shisheeye waddanka la keeno waan isku filana aan aaminsanahay halkaasaan uga soo baxay insha allah aad iyo aad aa mahadsan tahay inaan ilownana ma aha inay amisom timid dalkeenna inay tahay sabab annaga naga timid oo aan isku filaan weyne sida waddamada kale oo dadku ay adduunku ay isku filaadeen inay amnigooda sugaan oo ayagoo ay ka shaqeeyaan su-aalaha meesha ka soo baxday marka oo tan tacdiyada aan ka hormarsiinayno oo ahaato lacagta 1 bilyan ah oo dollar oo lagu bixiyo nabad ilaalinta ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya jooga 7 sano ugu dambeeyay haddana la sii kordhinayo waqtigooda maadaama Soomaaliya 2024 ay si toos ah loo wareegi karin sidoo qorshihii oo kala guurka maxaad isleedihiin sababta ka dambaysa lacagta 1 bilyan ee Amisom lagu bixinayo inaan loo soo wareejinin ama aan lagu bilaabin ugu yaraan oo kale 500 milyan baan ka soo qaadan inaan Soomaaliya ciidankeeda loo soo wareejin oo ilaa hadda Amisom la siiyo sababta ka dambaysa maxay tahay isleedihiin بسم الله marka hore magacayga waa Cabdullaahi Shariif Axmed arintaas hadaa wax yar fikirkeyga ku cabiro waxay codka kor yar qaadsan ku maqalno arintaas horta fikirkeyga hadaa ku cabiro dhanka maaliyadda maxaa loogu soo wareeji waayay sida horta reetooda ognahay waxaa la dafiri karin in dalkeena cuna qabateen hub saarneed hubka waaweynna oo lagu aamin waayay shalay oo dhalinyaradeenna ciidankaana ay badanaa loo toobari jireen haddii la dhaho saakay waxa lagu wareejinayaa 1 bilyan waxa lagu wareejin karaa haddii saakay 1 bilyan hub waaweyn lagu soo gado qof ku dagaalami karo ani ma qabo fikradda ah in ciidanka shisheeye dalka laga saaro oo laakiin hal tala qaba oo ku darsala fikirkeyga oo ah ciidanka shisheeye markii la keenayo taliyaasha ugu sareeya howlgalka noocaas ah hogaaminayo in fikradda iyo aqoonta kala soo dhex baxaan ciidankeena Soomaaliyeed oo lagu daro kaliya hayndaab inaan lagu xirin oo lagu dhex daro si aqoontaas hadhowta hadda midoo howlgalkii dhammaaday wuxuu dhammaaday ayadoo cunaqabateynta hubkan la ka qaaday waxaa laga yaabaa in wax badan oo aqoon oo saasaana laga faa'iidina laga yaabaa oo dhammaaday sidii ku baxay waxa ugu weyn ay qabteenna waxay ahayd ilaalida madaxda dalka siisa madaxda haday qalqal gasho waxaan kala dhan waa baabi'i lahaayeen hal hogaamiye uu sare hadii laga dilo waa dareemi karaa dalka xaaladdu gal lahaa lacagtaasna waxaa isleeyahay kulleeytaba waxay ka fiiriyeen dad oo aqoontan hubka cusub hubka waaweyn waxyaabaha baahida ciidankeena oo qab in lagu jaangooyay haddii la dhihi lahay waa loo dhiibaan waxaa laga yaabaa Soomaalida inay meelo kale uga faa'iideyso istiraahdo oo dalkii wax kasta hadda bilow waayo wax kasta horumar iyo dhaqaale u baahan yihiin marka waxa isla aragtida sidaas loo fiiriyo oo sidaas loogu waciyay aad iyo aad ma santahay waayahay aan gal marka tacadiyada qaybta tacadiyada aan gal marka tacadiyada Amisom ama ATMIS ama ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ay dalka ka geysteen gaar ahaan shacabka ay u geysteen oo kufsigu kamid yahay oo maxaa la yiraahdaa dilalka oo dad tiro badan oo hal meel lagu laayay sida tusaale kale shabeellooyinka oo kale magaalada Muqdisho maxaa la yiraahdaa bajaajyada inta badan ay dusha laga maro ama waxa shilalka baabuurta ay sameeyaan arrimahaasi sumcadda Amisom dhaawac intee laga ku yahay isleedihiin macnaa in dadka Soomaaliyeed ay aaminaan inay yihiin dad u yimid taageeradooda iyo in dawladnimadoodu mar labaad ay hana qaado yaa halkaas ka galay dhinaca sumcadda soo dhow mudan bismillaah magacaygu waa Faaruq Cismaan Siyaad haddii aan ka ra'yi dhiibto fikirka ah tacadiyada ay geystaan ciidamada Amisom ee nabad ilaalinta jooga dalka Soomaaliya horta tacadiyada ay geystaan ma ahan wax 1 iyo 2 iyo 3 iyo wax intaas ma ahan tacadiyada geystaan waxaan naqaanaa inay goobo
dad rayida joogaan inay duqeeyaan yiraahdeen waxaan duqeynaa al-shabaab ay ku dhintaan dad maata haween caruur ciyaal ay ku dhintaan aan naqaana inay yiraahdeen duulaana qaadayna dad shacab xoolahooda ilaalsanaa inay soo qabtaan ay qurkay ka jaraan yiraahdeen wallahi inay yiraahdeen la yaqaana waxa ugu dambeysatay ayaan hore la isku haystay ilaa iyo la isku geeyay Uganda la tagayo oo ciidamada Uganda ay ku laayinayeen shabeellaha hoose sidaas lamida markii marayaan wadooyinka ma siiyaan wax ixtiraam dadka wadooyinka maraayo saadkiisa saad ahayn oo mararka qaar waxa laga yaabaa wadooyinkaaba loo xiraaba si ay u maraan goobtaas waxay door bidaan inay break ka qaban mootooyinka kaleeto ay ku sii dhuftaan intaasna waxay soo binayaan awood isbidaan iyo يعني awood ay leeyihiin is door bidaan ay leeyihiin adikaab nabad ilaalin joogay intaas is door bidaan waay intaas hadii aan ka fiir intaas waa ra'yiga ah maxaan taciididi geysteen su'aal ka baxsan oo jawaab macnaha mid ka baxsan qaba ah midna yaana dafirin oo ah inay wax badan ay ka qabteen amniga dalkeena يعني magaalooyin badan oo waaweyn oo la xoreynayay in Kismaayo kaleeto Baydhabo kaleeto beledweyne kaleeto magaalooyinka la xoreynayay way qabteen oo markii koobada la bilaabay markaas oo u baahnaa qabashadooda laakiin hadda now aan joogno waxa ay noo hadda aan joogno waxaan qabaa inaan kala wareegi karno dalkeena awoodna u leenahay inaan kala wareegno saad ogtiinba ciidan oo shacab iyo ciidan isbahaysta waxay qabteen gobol dhan iyo ilaa 3 gobol ay xoreeyeen intaas xoreeyeen ayagoona intaas aan waxba qabanayn ka Soomaali ahaan ka dhalinyaro ahaan oo ku filanahay dalkeena mid saddexaad ma door bidi karno ma awoodna uma lehin intaas dhaqaale intaas ka badan uma hayno saafilay aad iyo aad ma santahay marka arinta tacadiyada iyo magaca Amazon maxay ku yeelan doontaa arintaas aan sii wadno waxa ku noqonaa oo arinta tacadiyada codka xogaa kor yar arinta tacadiyada ku noqonaa horta waxyaabaha keeni kara inay Amazon mise ciidamada nabad ilaalinta dalku joogo tacadiye sameeyo waxa kamid ah oo aragti ahaanteeda horta waxa loo keenay oo amniga ay ka ilaalinayaan waa Soomaali oo ma ahan dad oo ka midab duwan ma ahan waxay ku kala gartaan oo gooniyana ma lahan haddii dhar caadi inta soo wada gashtaan oo ninkiina la waxa dalkan ka ilaalinaya qolo hebel oo qoladiina uu ka seen ciidan Soomaaliya oo hor kacdana aysan jirin oo inta la soo wada ciidankii oo meel la dajiyo oo la dhaho meesha howlgal ka sameey ma kala yaqaan kan Soomaaliga midab ku kala garta ma lahan astaan gooni oo ku kala taala ma lahan marka wuxuu ku qasban yahay inuu meeshaas area la geeyo oo la dhaho hadii tusaale maanta la dhaho guriga waxa ku jirto dhowr nin oo shabaab ah waxa laga yaabaa inuu iska duqeeyo oo kala ka seembo laakiin waxa qaba aragti ahaan oo fariin ahaan u gaarsiin lahaa madaxda qorsheyaasha amniga in ciidamada ATMIS marka la keenayo ama howlgal ha fuliyaan ama gobol ha la geeyo ama xafiisyada dawladda ha la geeyo meel kasta in Soomaali lagu daro sida hadda loo xakameeyo dalkeena dawladdu uu lahaa jiray oo maanta ma aha in la isweydiiyo ma qabiibaani dalkan nabad ma ka dhalan kartaa ma la keeni karaa dalka dhowr iyo 30 sano ka hor dawlad xoog leeyahay oo jirtay oo power leeyahay nabadna waa ka dhalan kartaa waxa ay sheestana waa dhaxdeena laakiin waxa qaba hadii la rabo in la xakameeyo tacadiyada in howlgal kasta oo cusub ama kan cusub hadda soo socda ha noqdo ama kan jooga ha noqdo in Soomaali lagu daro go'aanka hubka markay isticmaalayaan Soomaali u gaarto si mas'uuliyadda markaas anaka u qaadan oo isku eedan mar dambe waana mahadsantihiin gabadhana siinayna soo dhow بسم الله magacay waa Firdawsi Xasan Maxamed بسم الله magacay waa Firdawsi Xasan Maxamed waxa kamid ahay ardayda ka socota jaamacadda SIU hal mar waxa sii dabagalaya hadalka Cabdullaahi Shariif asiga ma ataagaya laakiin aragtidiisa ataagaya markuu dhahayo ma kala yaqaanaan dad Soomaaliyeed waaye Soomaaliya wadanka ilaalinaya Soomaaliha lagu daba daro aragtidaas ani waa diidanahay oo Soomaalidii la socotay waxa laga yaabaa inay ka awood badan yihiin ka celi karin nin Soomaali adoo maanta la socdo guuta oo Ugandese ma celin karo ma dhihi karo hadilin kufsi aday sameeyayaan ma hor istaagi karo marka ani ahaanbo waxa qaba Ugandese ama ATMIS dhan ma dooneyno inuu wadankeena joogo
midda kaleeto shacabka aragti noocay ka aaminsan yihiin in loo keenay inay waddankooda difaacaan haddii ka soo qaado inta aqaano fikradahooda anigoo raad raacayo markay laamiga marayaan waxaa la dhahaa kuwii balaayaa maraayo balaay allah ku ridee wax qaldan ay shacabka ka aaminsan yihiin ma isdhahayaan kuwaana ku difaacayaan amnigiina loo keenay inay sugaan cid kaa aaminaysa maanta ma lahan madaxda way difaacaan meelaha waaweyn way haayaan laakiin shacabkii iyo maatadii xaafadaha deganeed intaas ma arkaan haddaan anaga shacab nahay ma aaminsanin inay atmis wax noo qabtaan madaxdeena way ilaaliyaan intaas way ku mahadsan yihiin laakiin anaga ka shacab ahaan waxaa qabnaa aragti shalay mise maanta shalay waxay ahayd xilli aad u liidano awood aanan lahaynin laakiin maanta waxaa aaminsanaha ani inaan ka wanaagsannahay meeshaa shalay joognay meel fiican aan joogno xilligii oo awooddeena aad tijaabin lahayn waaye weji saddexaad yaa noola celin waa mahadsantihiin aad iyo aad aa umahadsan tahay waa dood aad u fiican waa ku siinaa waxaan rabnaa doodda inaan way sii macnaanaysaa inaan dhinac kale ka fiirino dood waxaa jirta dhibaatooyinka jira dalka marka laga tago Amazon iyo dawladda iyo beesha caalamka iyo taageerada adduunka timaada ciladu waxay ka jirtaa gudaha shacabka Soomaaliyeed oo wuxuu raba baan la aqoon oo cod aan lahayn oo dood qabin oo maalin kasta meeshii loo jahayo isku jahaysmay maadaama tiin waxgaradkii dhalinyaradii jaamacadaha jiilkii hadda soo kacay ma isleedihiin bulsho ahaan annagu waa ka gaabinay in aan niraahno sidana fiican sidana waa khaldan tahay doodo oo mujtamac iyo dawlad doodo siyaasadeed doodo amni inaan abuuro taasna ay keenayso in hawlgalka Amazon maalinba waji cusub loo yeelo sii dheeraad halkaas ayaa ka galaya waxaan aad u jeclaanahay dadkan hadlinna inay ku darsadaan bismillaah magacaygu waa maxamed xayle cumar waxaan ahay ardayda dhigata jaamacadda SIU يعني بروفيسورka sidoo sheegay waay wuxuu dhahay yani doodeena ma dhanka bulsho ahaan markii loo fiiriyo bulsho ahaanta horta marka ugu horeyso qodobkaas wuxuu ka duulaa bulshada horta qof ka soo laabta ma jiraa waay bulshada haddaan dhahno bal ka waran bulsho codkiina rabnaa inaan aragno yani haddii loo sameey lahaa yani ururo maanta bulshada oo dhaw codkiina idin qaadeenaa oo yani haddii dhinaca amniga ay noqon lahayd hadday noqon lahayd yani dhinaca dhaqaale yani everything yani ay dhiilaayeen waxay noqon lahayd markaas wax la garto laakiin samaana arag shacab wali in loo soo laabto oo la dhahayo yani maxaa ka tabanaysiin sidee u aragtiin ciidamadeedina ciidanka yani admas sidee yani uga qayb qaadanaysiin amnigiin inaad sugtiin oo kale laakiinse waxaan aragnaa mar walba in la dhahayo ciidan hebelaa dalka la keeni rabaa ciidan hebelaa soo socdo shacabkeena iyo bulshada kama warhaayaan ciidanka markaas la helayo ma oga yani in qof walba horta shacaba wuxuu gar u leeyahay inuu ogaado xaaladda ee waddankiisa oo marayo weli ma isa dhicin in lagu baraarujiyo oo dhahaan dowladdeena ay dhahdo shacabow bal idinka maxaa idin roon waddanka sidaana u socdaay bal wax ma ka haysiin waddanka dowladdaas hebelaa waxaas ka rabnaa ma isa dhicin weli yani ma laga yaabaa iska badaaba waddanka oo dhan ma laga yaabaa degmada hodan oo kaliya markii laga qoraayo ciidamo ma la dhahaa yani in xaafadihii la imaado ama yani dadka masuulada xaafadda ka ahayo kale ma la dhahaa weli ammaankiina ma ku filantihiin oo yani dad idiin difaaco ma haysatiin horta su-aasha ugu horeysa ee dadka in la isweydiiyo taasaa mudan sababtoo ah weli maanan arag qof dhahayo yani inuu shacabki ama ururo inay sameeyaan dhahayo yani shacabow ma ka awoodiina yani halkaas igu jooji marka su-aashaas aday kugu soo laabanaysaa doodda waxay tahay in wax dusha lagaga keeno mahana adu wax ma ikhtiraaci kartin ama shacabku tusaale kale hadda adiga waxaad tahay nin dhalinyaraha oo jaamacad digtaa tahay dalkan mustaqbalkiisa aduu ku hor yaalaa iyo ragga kula midka oo jaamacadaas la dhigataan miyaan la oran karin miyaan hadda la joogin xilligii la abuuri lahaa dood aha annaga dooddanaan qabnaa amniga sidanaan u rabnaa siyaasadda sidanaan u rabnaa ciddana matalaysa sidanaan u rabnaa doorashooyinka sidanaan u rabnaa Amazon inay naga baxdaan rabnaa waa nugu dheeraatay ama inay noo sii joogtaan rabnaa intaan tabartan nagu filan doodda gudaha miyaan laga samayn karin su-aashaas sax sidaa ka dhawaajisa waaye doodda yani marka ugu horeysa waxaa la dhahay waxa kaa dhex guuxaya bannaanka soo mara bannaanka imaada yani annaga horta way naga dhex guuxaysaa laakiin waxaa la rabaa qofka markuu cusub yahay waxaa la dhahaa afka gacanta loo geliyaa si looga soo saaro wixii markaas yani ku margadayo kale soomaalida sideeda badanaa marka waxaa laga yaabaa in qof walba ay ku jirto ra'yi cabsiya bal marka sidaas darteed bal horta amnigeena ha loo geliyo gacanta dadkeena Soomaaliyeed oo hal dhaw ciidamo Soomaaliyeed maanta yani waxa ardayga hadda ani arday ahaan aan ka duulo yani arday hebel yani uma tagi karo nin wasiir ama baalkii joogo baalkii ama wasaarad kale joogo ama meel amni joogo laakiin ina anaga isku xirnaano oo dhahno waxaan rabnaa in saas aan noo sameeysiin
marka middaa ku daraya waxay tahay yani waxaa dhahday idinka dhexdiina midiga dhex guuxi kartaa qof walba yani dream oo leeyahay qof walba waa ka dhex guuxdaa ra'yigiisa haddaa annaga ra'yigii aan soo guuxino ma laga yaabaa inay dowladda ama ay dhahaan yani ra'yigiina waa idinku qaabilnay taasna meesha waa imaan kartaa aad iyo aad aa mahadsan tahay contribution fiican haye sii saaxiibkiisii waa kuu soo laabanaya saaxiibkiisii gal hore u sii gal ku soo laabtay waxaan rabaa inaan qodobkaas ka jawaabo dhalinyarada iyo macnaha ma jirtaa wax idinka dhex guuxaya maxaa u hadli weydeen dhalinyarada Soomaaliya horta laba weeye dhalinyarada khaladan saaraya iyo bulshada rayidka ah waxbaratay dadka haldoorka bulshada Soomaaliyeed dowladda iyo dadka madaxdaana hal qalad leeyihiin ka qaladka dowladdan ku horeynaya qalad dowladdu waxay leedahay iyo dadka madaxda sidoo ninkan sheegay saaxiibkay igu horeeyay ma jirto dowlad kula la tashata ama kula soo laabata ama haddii marka raxdaas ah dowladda madaxda Soomaaliyeed waxay u shaqeeyaan ama ay ku shaqeeyaan aragti dowladda shisheeye marka fiirsi qaabkay u fikirayaan qaabkay u shaqeynayaan cid ay la tashanayaan shacabka Soomaaliyeed ama haldoorka ama dadka bulshada rayidka dadka macnaha wax ku oolka qaladkan saari waxa weeye horta marka koobaad caburina jirta macnaha waa la caburiya qof haldoorka Soomaaliyeed mid ka mid ah hadduu hadlo ama aragtiisa banaankeena ama uu waxaas khaldan waxaas saxan awood uu kaligi wax ku sii wada ma lahan ta khaladka ay haldoorku leeyihiin waxa weeye inaysan aragtidooda iyo waxa dadka wadankooda dalka u ah oo aan danta ugu jirto inaysan macnaha iyagu ku dhiiran ama aysan qofkii wax salaan ana wax sheegay dowladda cabirta inaysan taageerin oo aysan oran waxaas hadan noo ah madaxweyne ama qof hebeelow waxaas noo fiicnaa wadanka dan ugu jirte macnaha ka leexo wadaxda wadanka dadka ma maqasho oo way cabirsaa dadkuna kuma dhiiradaan oo ma sameeyaan awood iyo kacdoon iyo waxyaabo ay macnaha kaga meedhalan karaan waxyaabahan wadanka danta u ah marka labadaas khaladaa jira hal su'aal waxaan ku laabanayaa qodob hore oo ah macnaha ciidamada Afrikaanka wadanka jooga ama ATMIS oo kale tacadiyadu iyagu ma ku leeyihiin macnaha wax saameyn oo wanaagsan ama xun way ku leeyihiin laakiin waxa jirta hal qodob oo ah waxaan adigu aad sameynaysid haddaadan ogeyn cid kaaga dambaysa ama cid wax kaaga tiraahdo waxaas sameysay wilo maxaa sameysay waxa artaa sameynaysa macnaha madaxa wajiga furna noqonaysa madaxda Soomaaliyeed uma diyaarsan ama kuma dhiirato ama Soomaaliya oo dhan aan dhaho in lagu xisaabtamo nimanka soo xigeystaan macnaha aan halkaas su'aasha ka weydiiyay maxaa diiday maadaama idinka tihiin ba doodda hadda ka bilaabanay xadgudubyada ayaga ay sameynayaan inaa ururo u sameysaan u istaagtaan qoysaskii dadka oo dhibanayaasha u tagtaan oo soo registraysaan ama aad soo qortaan aad la timaadaan baraha bulshada saalo socotaan hadda waxaa furan qof kasta inuu ra'yigiisa baraha bulshada ku idinka maxaa shaqooyinka u qaban weydaan saalo maxaa qof qaban waa gaabka hadda aan leeyahay haldoorka Soomaaliyeed iyo khaladka aan leeyahay way leeyahay macnaha ma jirto bulshada saas u diyaarsan hadday jirtana waa hal iyo labadaas waxa moodi karaan cid wax la wada ama bulshada Soomaaliyeed saas u diyaarsan khaladkaas bulshada Soomaaliyeed iska leeyahay haldoorka kaas dhalinyaro ahaan waa laga gaabiyo waa jirtaa laakiin nimankaas macnaha khaladka ay sameeyaan cid kula xisaabtanta ma helaan waxbay sameeyaan ka fiirsamayaan laguna xisaabtamo kadib wixii way sii wadaan ama sintii aad u maasan tahay soo mudanahan sii saaxiibkeena ugu horeeya bismillaah magacaygu maxamed qaadir aadan waaye aada u salaama bahda balqays iyo TV-ga iyo dhamaan saaxiibada halkan igu wehliya su'aashaada haddaan hore u sii galo jawaabta dhan waxay ku soo aruuraysaa amni dalkan 30 sano 30 iyo wuxuu ku jiraa burbur aad u ba'an dhalinyarada iyo saaxiibada waxbaratayna waxay u dhaxeeyaan laba dib dhexdooda bay ku jiraan haddii maanta wacyigelin guud inaan sameeyo aan isku dayo fagaaraha aan imaado dad isku keeno labada dhinacba waa layga raadsanaa waxaa arkaysaa qof banaanbax hogaaminayay 2 maalin 3 maalin kadib dowladda u xariisan yahay duusa dowladda u xariisneen mas'aladu ka hadlaya mas'alad dawli haddaysa ahayn cidda dowladda cagsiga ku aheed u xariisan yahay marka inaa wacyigelin guud ah sameyso mar walba wax diidayo amniga iyo maxaa la yiraahdaa xaaladda guud ee dalku ku jiro dalaad maalin dhaweyd waxaa dhacday musiibo xeebta Liida ka dhacday Allah u raxmada dhamaan walaaladii ku dhintay inta ku dhaawacantayna Ilaahay u boogdayo waxaa jira ani iyo saaxiibo qaar inta wada fadhiya munaasabad waxaan qaban qaabinay ahaa munaasabad quraan aqrin iyo duco waxaan weynay saaxiibo nala yimaado oo madashina la fariista waa baxnay location soo kireynay hawshu waa isku daba ridnay laakiin waxa weynay TV-yada xitaa diyaar ahayn waxa weynay niman dhalinyaro ah meesha ku dhiirada imaada qof walba wuxuu ku leeyahay cidii waxa sameysay hadii maanta meeshan quraan aqrin oo camera igu dhacdo quraan aqrinaayo isla cidaas aan ka baqaa marka dhalinyaro noocaas ah oo laba dib dhexdooda ku jirto way adag tahay wacyigelin guud inay sameeyaan si guudna su'aalihii iga horeeyay rabaa inaan khulaaseen dul mariyo
hal su'aal si guud inaan isweydiino waa muhiim wiilka Etoobiyaanka ah ama wiilka Kenyaanka ah ee magaca admis hadda Soomaali ku joogo asiga markuu furmaha tagaayo oo raba dalkan inuu xureeyo dan guud ma ka arkaa inuu Soomaali maanta ay xurowdo maslaxad ma ka arkaa waa maya Soomaali maanta haddii xurowdo wiil walbo Etoobiyaan oo halkan joogo wuu og yahay se ayada nabad u hesho inuu saasi nabad u heli doonin wuu og yahay steepkay hadda ku jirta hadday ka baxdo naga steep inuu Ethiopia tahay naga steep inuu Kenya tahay sidaas daraadeed shalay 17 sano ka hor waa ku qasbaneen admis waa ku qasbaneen doorasho kale ma lahayn dalkan hadda la kala uma qasbano 30 sano ka hor qof walbo wax garad ahaa dalka jooga wuu cararay qof walbo wax galaha dalka jooga wuu cararay culimo qof walbo wuu cararay waxa isugu soo haray qofkii aakihiisa gadaal suran karo ama wax dili karo ama la dili karo kaliya 30 sano kadib maanta alxamdulillah aqoonyahana soo baxay kuwii dibadda naga jiriya soo laabtay waa isku imaanay su'aalo isweydiinay su'aalaheena jawaabta nooga soo baxayna waxay noqotay inaysan admis wax interest noogu jirin aad iyo aad u maasantahay waa dood fiican yaa gacanta taagtay بسم الله اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته magacay waa Daxkan Ali Maxamed maanta waxaan ahay dhalinyaro Soomaaliyeed meeshaan iskugu imaaday kuwaasoo ka hadlaayo wadankooda maxaa u danay admis 17 sano maanta dirshatay ee wadankeena joogta admis aanu kala qaadno 3 waji maanta leedahay horta ciidamada anaga maanta ilaalinayo in la joogo waa 3 wadan ama 4 wadan oo ciidamada admis 5 wadan ku dhawaad 5 wadan 3 wadan kamid ah waxayna leeyihiin xuduud askariga maanta anaga xuduudkan la ee wadanka anaga maanta na ilaalinayo oo wadankeena joogo xuduudna le anaga ma wuxuu noo ilaalinayaa dantiisa mise dan Soomaali Ethiopian wadanka maanta waxa uu dirsnaa wadanka Ethiopia asagoo maanta dawladdeena isdirsan yihiin la og yahay wadankeena iyo asaga maanta caqabada kala haysato oo askari asagoo uu leeyahay wuxuu ku soo guraya xuduudda wadanka wuxuu soo dhaxmarinaa xuduudda wadanka ayagoo xitaa tacadiyaad iyo dhibaato geysanaya sidaas awgeed wadanka Ethiopia markuu uu wadankeena leeyahay waxaan ka ilaalinayaa cadowgiisa waxaan ka ilaalinayaa Soomaaliya cadow kama ilaalinayaa Soomaaliya cadow wuxuu asaga iska ilaalinayaa in xuduudiisa u gudbaan dhibaatada Soomaaliya haysato in asaga xuduudiisa gudbaan islamada ciidamada Kenya ee wadankeena maanta ilaaliyo waxa maamul goboleedyo kamid ah maamul goboleedyada wadankeena oo joogan waxay sameeyaan markii ay khilaafaad dhaximaad maamul goboleedka dawladda federaalka in ay raacaan maamul goboleedka ayaga maamul goboleedka la jiraan waxa dhacday in ay elboorada ka xirtaan madaxda dalkeena waxa dhacday in wadankeena ayagoo tacadiyaad iyo dhibaato ka geysanayo haddana ay dhahaan waxaan nabad ka ilaalinayaa Soomaaliya askariga Soomaaliga ee wiilka Soomaaliga ee maanta dagaalka jooga ee furunta ku jiro waxa uu qaataa lacag $200 askariga Ugandeska ama wadanka jooga ama admis ku ilaalinayna wuxuu qaataa lacag $1,000 wuxuu dhex taagan yahay Muqdisho sax waayo meelo wadankeena qatartiisa ay adkaan lahayd kamid yahay elboorada kamid tahay mataqaana dekedaa uu ilaaliyo laakiin askariga wadankeena nabadda uu imaaday marka uu wadankeena nabad ka diraa waxa rabaa dagaal walba oo wadankeena galaayo inuu qayb ka noqdo laakiin inuu Muqdisho asagoo dhex fadhiyo oo dhaho Muqdisho meel hebel qarax baa ka dhacayo asagoo og inuu wadankeena qaraxyo ka dhacayaan dhibaato leeg geysanayo maxay tahay hadana sababtu u sheegi laayahay meesha wadanka soo galaya uu og yahay meesha la qarxinayo uu og yahay mataqaana waqtiga uu qaraxas dhacayo saasay tahay wuxuu ku leeyahay waxa ilaalinayaa wadanka Soomaaliya nabadiisa askariga maanta 17 sano wadankeena jooga maanta waxa leeyahay waji cusub yeelnaa balan fiirino waji cusub maanta yeelnaa wajiga cusub maanta yeelnaa waxa qayb ka noqonaya ciidanka Masar ee wadankeena imaanayo iyo ciidanka Ethiopia waa la ogyahay isdirsiin ciidanka Ethiopia markay maqleen Masar baa wadanka imaanayso waxay xuduudeena ku soo gurayaan ciidan military ay leeyihiin ee wadanka Kenya si ay markaas ay uga hortagaan dhibaatada Masar ay marka waxa suurtagal ah dalkeena inay dal kale isku dhex dagaalaan wadankeena wuxuu noqon doonaa furun dagaal oo dal kale isku dhex dagaalaan sanadaha soo socda aad iyo sida wadanka Masar iyo wadanka Ethiopia waxay isku haystaan webiga Niil hadhow marka laga soo tago waxa imaan doonta in xuduudaha Soomaaliya isku diro nin walba hadda wuxuu sameysanayaa xirooyin gooni ah oo mataqaana
uu rabo inuu ciidankiisa geysto waddankeena adaa kuu fahnay adaa umahadsan tahay yaa jecel inuu fikrado cusub oo dhinaca gabagabada aan ka fiirinaynaa inuu kusoo daro arrimaha la xiriira 17 sano amisom u dambeysay halka faceka ama wejiga cusub uu ku dambeyn doono soomaalida iyo maaragtay xilligan la joogo maxaa garaad ahaan iyo karti ahaan ama diyaar garow ciidan iyo dhaqaale iyo dowladeed ay qabaan oo suurtagelinaya inay amisom ka maarmaan yaa noo soo gabagabeynaya gabagabadii saaxiibkii hala siiyo mikrofoonka. السلام عليكم magacaygu waa maxamed raxmaan cumar oo ka socda jaamacadda isaayo walaalihii horta dhanka badana waxay ka wada hadleen oo dhanka barnaamijka oo ku wada socday atmis laakiin midda atmis ina usoo laabtaa raba oo midda etoobiya hal mar ah soo eego kadib midda atmis aa kusoo gabagabeeyo haatan la taagan yahay midda oo etoobiya saa wada ogtihiin horta dalkeena dagaalku ugu xoogan jasna way ka taagan yahay waa dhanka etoobiya oo sababto ah waa ogtiin in dhahaan justina bida u baahana waa ogtiin abi axmed inuu dhahay brisanka ugu weyn aan ku jirno waa anakoo bad aan helin way fahanteen arjina marka axmed fiqi uu baxay asina wuxuu aaday turki uu aaday si oo arinta loo soo gabagabeeyo arintiina meel xun inuu ku dhamaato waa la wada ogyahay waa dadka dhan social media ay ku wada jiraan waa la ogyahay meesha ku dhamaatay mid kale abi axmed haddii si loo fiiriyo militariga ugu badan hadda oo soo gelinayo wadanka waxaa waaye militarigiisi halhal u soo gelinaya sababtoo ah wuxuu rabaa hadhowti haddii qosh iyo qaac ay ka bilaabato meeshan in oo isla markiiba wuxuu rabaa hawshiisa oo bilaawdo dadka badana Soomaalidan ma wada ogaan inuu soo gelinayo sababtoo ah cid arki karta maraa sirdoon ahaan u soo galaa wadankii ay soo sirdoon ahaan u soo galaa hadhowtina haddii qosh qaac ka bilaabato hawshiisa wixii iska bilaawna hadda soo sheegay walaalkeena Masar hadduu imaatana wadankeen dhexdeena oo dagaal duwan laga bilaabo oo ay ka isku dagaalaan Masar Ethiopia way fahanteen arjina marka midaas hadda meel soo dhigo midda oo hadda atmis sa sheegayno atmis haddii aan u soo laabano atmis horta runta dil sheego Soomaalida badana uma baahno saa la wada ogyahay cabsi oo nagu jirta awgeed ahaan anaka oo aamusana ma ahane haddii aan maanta loo ilaa waa hadlaysin oo madaxweynaha halal noo soo qabto hadla cid wal fikradiisa dhiibato wallahi bilaa uma baahan runta dil sheego sababtoo ah nin walba uu ogyahay meeshan cilada ka jirto oo atmis dhankeeda ka jirto hadda wadanka oo jeedin bajaaji badan oo jeedin wadada iska maray si u socdeen mala xitaa hoon xitaa ma jiro tii ayaan lambar 4 ka dhacdo waa aragteenbo asoo askarigi dhahayo oo askarigi Soomaaliya asoo dhahay istaag inuu ka diiday bajaaj ku dhuftay waad aragteen marka saawad ogtihiin anaka dhan uma baahna atmis marka intaas ku soo gabagabay aad iyo aad ma santahay barnaamijka waxaan rabnaa inaan soo gabagabeeno ka soo qaybgalkiina aad iyo aad ugu mahadsantihiin marka haddii san jirin qof oo fikrado ay gubayaan soo dhawaada barnaamijkan wuxuu barnaamij gaar ah oo ay iska kaashadeen Balqiis Insights oo ah xarun cilmi baaris amniga iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo TV dawan sidoo kale waxaa qayb galiyay ardada jaamacadaha magaalada Muqdisho aqoon-yahan waxaana aan ka doodaynay Amison 17 sano kadib ama Atmis iyo wejiga cusub hadda la filayay inay yimaadaan oo dalalka cusub ay kamid yihiin dalka Masar ay kamid yahay iyo sidoo kale suurtagalnimada in Soomaaliya isbedelkaasi ugu daraado ama ugu roonaado intaan barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono ama doodahan oo kala sii wadi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo aad u mahadsantiin